السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada kobciya software casharadeenii taxanaha ee B3 ayaa noo socday. Casharkeeni wuxuu noqon doonaa casharkeenii sagaalaad. Casharkeenii sagaalaad wuxuu la xiriiraa casharkeenii sideedaad oo ku saabsanaa batches order. Casharkan wuxuu ka hadlayaa marka batches order la qorto oo la receive gareeyo oo warqadii loo qoro nimankii shirkadii keenaysay alaabta. kadib alaabtii waa loo keenayaa qaabkii loogu diiwaangelin lahaa anagoo isticmaalna base 3 ayaanu sameyn doonaa dhinacayo programka usoo leexda. kadib markaan alaabtii receive gareeno waxaa jirta transaction ayaanu transaction ayaan raacanaa transaction pdf transaction wuxuu kaaway lahaa 8 transaction oo kala duwan. marka transactionka koowaad wuxuu sheegayaa batches orderkii aan Omar u diranay waa la receive gareeyay deynna waa lagu receive gareeyay bali macna alaabtii waana loo keenay laakiin hana loo keenay lacag maanu bixin deyn ahaan baana loogu keenay. marka ka soo qaad alaabtii waan dalbanay Omar baan u dalbanay intii baana loo soo raray lacag maanu siin waxaan niri markaanu lacag helo ama bilka bacda ayaan lacagtii ku siinaa qaabkii loogu diiwaan gelin lahaa base 3 ayaanu sameeynaa. kadib marka aad saad u diiwaan gasho waxa tagaysaa taskii kadib waxaa ka sii tagaysaa batches receive inventory qaybtaas aad ku dul dhifanay qaybta markaad ku dul dhifatid aan shaashada iska soo weynaysiisto waxaa muhiim ah waxa soo furaysaa isha yar horta yaan ka receive gareeyay transaction-kan wuxuu sheegayaa waxaan ka receive gareeyay Omar baan ka receive gareeyay Omar company. marka Omar company baan dooranayaa halka sida Omar company. kadib maxay shaashadani noqotay gareey bay noqotay intaas oo dhani markii hore markii Omar doorneen ka soo qaan iska masixay markii ugu horeysay hadda mid caadi iska dhifto kale gareey isku bedelay. marka Omar halka ay doornaato intan oo dhan gareey isku bedeshay. kadib waxa muhiim ah date-kii muhiim ah date-kii aad receive gareysay alaabtan ka soo qaato markii bishaan receive gareey invoice waxa la dhahaa sales invoice waa loo yaqaan ama batches invoice waa loo yaqaan oo ninkan aad wax aad ka iibsatay alaabta ku keenay warqad buu ku soo qorayaa oo tixraacan oo ku qoran qiimihii alaabtu intay tahay waxa soo dhan ka code yar bay leedahay ama serial number kii halka gelin ka soo qaad batches invoice ka soo qaad numberkaas serial numberkaas bay leedahay bv 121. kadib waxa muhiim ah maxaa hada saa loo diiwaan gelin receive-ka marka alaabta helay isha yar baad soo furaysaa isha yar ma soo furatay kadib batches oo dharkii aanu receive garay laba batches oo dhar aan receive gareynay kadib bo 12 baad qoranay. marka waa maxay isha yar inta soo furtay ayaan ka koowaad kii marka waxa laga yaabaa in dhowr invoice oo kale aad u qortay marka halkan ay soo wada taxmayaan. marka hadii markay soo wada taxmayaan kii code-kii koowaad ee diiwaan gelisay markaan diiwaan gelinay batches oo dharka code baanu siinay ama warqadii code-kii aan siinay baad ka dooranaysaa halkan ka soo qaad code-kaas aanu siinay markii bo 123 baanu siinay halkaas aad ka dooranay. kadib itemskii aad dalbatay baa soo baxaya itemskii waa kuwan waa rice waa flour waa sugar waa itemskaas oo dhan itemskaas qaabkee loo receive gareynaya itemskii waa soo baxeen mid walba waxa sameyn kartaa itemskii ma haday soo baxeen waxa tahaysaa ship baad tahaysaa halka tagaysaa ship baad ku halka ku dhulfanaysaa kadib all baad tahaysaa maadaama aad wax receive gareysay ship ma tagay all baan wada dhahayaa waa receive gareeyay waxba. kadib waxaan sameynayaa saasaan ku save gareynaya hadda waxa ka dhigan tahay in aan alaabtii helay alaabtu qiimaheedu inta tahay ayaan helay kadib waan save gareeyay. hadda saas ayaa alaabtaas inventory hadda way taala hadda dhammaan sheet-ka ka eego alaabtaasi way taala aan balance sheet-kaygiiba tagoba warkuba go'an balance sheet-kaygii tago reports-kaygii tago balance sheet-kaygaan iska soo halkan iska soo xidho balance sheet-kaygii baan ka eegayaa bani alaabtaasi ay ka muuqatay in kale waxa by practical baa muhiim ah qofku inuu arkaa wixii uu diiwaan gashay aan click siiyo balance sheet-kaygu in inventory wax ku soo beeran
inventory ina kusoo biiray waka inventory waka kusoo biireen inventory maxaa kusoo biiray waa intii igu qiimeysnayd 5950 hadda ku sii dul dhifto xitaa information uu sheegaya wuxuu ii sheegayaa meelaha ka kala yimaadeen oo intaaba Omar baa ii keenay alaabtaas oo dhan marka hadda double click ku sii dhifatay xitaa ku sheegaya alaabtan halkay ka timi close as ka sii dhaho waa ka inventory-ga halkaas uu ka kordhay comparable-keeni uu kordhay khasab wuxuu kordhay markii hore 40,000 buu ahaa hadda wuxuu ku kordhay intaas uu kordhay maadaama aan deyn waxaan ku soo iibsanay oo lagu leeyahay deyn ahaan lagu leeyahay qaabkaas ayaa loo diiwaan gelinaya taasixkeena koowaad horta intaas ku saabsan yahay aan iska soo xidho taasixkeena labaad muxuu la xiriiraa taasixkeena labaad wuxuu la xiriiraa purchase order kii aan indha deero aanu sameynay waxa la receive gareeyay wuxuu leeyahay 150 maanu dalbanay tona fisha laakiin waxa la receive gareeyay waxa la receive gareeyay konton bi oo waxa la receive gareeyay 100 baa la receive gareeyay oo konton ku leenahay macnaha waxay ka dhigan tahay inaan kontonkii ku leenahay aan bay marka cash lagu bixiyay marka labada item baan u diranay cashirkeeni hore ardaygu inuu la socdo cashirkeeni hore laba item baan u diranay waa oil iyo tuna fishkii waxa la yiri 100 u diranay kontomaan waxaan nasiib garay aan helay 100 konton mana helin marka waxaad qoraysaa mar walba intaad receive garaysay baad lacagteeda bixinay haddaad 100 ka dalbatay oo konton ku keeno kontonkii baad receive garanay marka qaabkee loo diiwaan gelinaya aan soo furo barnaamijkeygii taski aan tago selo duwan geeyay mar haddii alaabta helis halkan baa la tagaa purchase and receive inventory meel kale lama tago kadib shaashadeena isku sameynaysiinaya kadib inna deeraan dul tagayaa inta deeramuto marka invoice-kii waa muhiim warqadda uu ku soo raacinayo alaabta waa muhiim koodkeeda marka BV 444 baan raacinaya ka soo qaad koodkaas ee leedahay halkaas soo furaya waxaan BO12 baan markii hore siiyay koodkeedu ahaa aan koodkan marba fahan waa koodkii aan maalintii siiyay macna batches orderkan sameynayay cashirkeeni hore qofku ka daawanaya wixii hadii ku adkaado koodkaas aan siiyay kadib waxa soo baxay labada item waa labada item ay soo baxay waa kuwan kadib waxaan farsameynayaa shimati all baan dhahayaa shimati all marka waxaad ka soo qaadaa shimati all ma yiri tona fishka waxa lagu yiri 100kiiba ma receive gareeyay waxaad receive gareysay 100 halka ka bedel marka 100 maadaama labadii 100 baan receive gareeyay tona fishka 100 ma tiri saas qiimayaashu sagaas diiwaan gelinay sagaas isbedelaya waxay ka dhigan tahay markii hore 100 waxa dalabatay waa intaas halkay ku qorin waxaad receive gareysay halkaad ku qoray marka horta oyashi sideedii baan u helay laakiin tona fishkii baa soo haray tona fishkii 150 baan dalbaday laakiin waxaan helay 100 baan dhahayaa kadib wax kale ima harsana lacagna waan ku bixiyay baa uu leeyahay lacag ma hadad ku bixisay waxa sameynaysa halkan hoose tagaysaa horta maxaa lagu leeyahay invoice-kan ay soo qoray waa waxa lagu leeyahay waa 400 iyo 4200 iyo konton marka 4200 konton maxay ka imaadeen labadan buu total garay meel waa 3000 meel waa 1200 ka labadaas isku soo daray intaas lagu leeyahay macna intaas iska soo bixinaysa lagu leeyahay marka taasixkeen waxa ku qornaa inaan ku bixino cash baan ku bixinay invoice-kana marka halka intaas tiradaas halka yar boxka inay banaan ay ku qoraysaa 4200 iyo konton taasixkay min amount paid at purchase min lacagta aad bixinaysid marka intaasaan bixinaya kadib save aan dhahaya kadib save matay uu qabsanay muxuu igu qabsaday waa in ay macna invoice-kani reference uu ku qabsanaya reference-gu waa maxay macna waa warqadii tixraaca ahayd aad ku qortay marka ka soo qaad markaad cash-ka bixinaysid cashier-ka bixiya cashier-kuna iskama bixiye waxa soo qoran ninkan account payable-ka xisaabsan ninka quantity-ga ayaa qoraya warqad oo dhahaya payment-iga waanu bixinaa saleskaasi maadaama inoo yimaadeen alaabtaasi warqad buu qoraya
warqadaas code yar warqad kasta oo de businesska dhex taala ama accounting document baa loo yaqaanaa code bay leedahay. code kaa yar ayuu ku qoray, code kaa yar warqadaasi leedahay ayuu halkan ku qoray. kasoo qaad code kaasi magaciisu waa code kaasi waa payment voucher BV payment voucher 60 oo kale code kaas uu leeyahay. kadib save aan dhahayaa, sidaas ayuu ku save garoobay oo micnaa journalkaasi ama waxaan leeyahay aan alaabtii ku receive gareenay maad alaabtii 100 ahayd 150 ton fish ayaan ku receive gareenay, lacagna waan ku bixinay cash. marka aan eego balance sheet-kaygi maxaa iska bedelay, balance sheet-kaygi maxaa iska bedelay aan eego balance sheet-kaygi dul tagayaa bar balance sheet-kaygi maxaa iska bedelay. marka alaabaha sida loo receive gareynayo lacagta loo bixinayo waa saas u fudud yihiin. balance sheet-kaygi maxaa iska bedelay, halkaa markaan sameynayay khalad baan sameeyey oo waxaan ka saaray cash on hand baan ka saaray akoonka. aan khaladkaa dib u saxo, khalad baan sameeyey. khaladka saa loo saxayona way fududahay, sugan aan dul tage. waxaad tegaysaa batches oo dhan, markii hore batches aan sifa tegaysaa, kadib waxaad saaraysaa halkaas receive halkaa yar baad ku dhuloofinaysaa previous micnaa wuxuu ku leeyahay transaction kii aad diiwaan gelisay ee hore. transaction kii koowaad maay aan halkan ka doorto sug, halkan oo indho deera ka doorto, kadib aan intaa dhaabto no waka halkaa yar baad daabanaysaa wixii calaa maxaa khaldaa daba hadeer akoonkaas. halkaas cash on hand lacag iguma jirto, waxay igu jirtaa lacagtu regular checking account, maadaama anagii marka cashirkii hore aan ku darnay waa inaan lacagtiiba waxaan deposit gareena bangigaan dhignay lacagtii. marka haddii lacag kuugu jira akoonka sidii markii dhaweyd balance sheet-kiina wuxuu ka dhigayaa laba qoys buu ku ridayaa oo micnaa waa akoonkaas waa akoon cas buu ka dhigan yahay. marka akoonka ay lacagtu kuugu jirto waanaad mar walba doorataa, halka hadda check account bay igu jirtaa. kadib waxaan dhahayaa save ma yidhi close ka dhaho waa inuu hadeer informationka oo saxa waa inuu siiyaa, waa inuu ka biyaa meeshii hore, waa inuu ka biyaa cash on hand. markii hore casaan buu siinayay wuxuu laba qoys buu ku ridayay waka, hadda cash on hand way ka baxday maadaama akoonkan uu ka jaray. micnaa waxay ka dhigan tahay inuu akoonkan ka jaray. marka labada transaction wuxuu la xidhiidhay anagoo credit ku receive gareynay oo alaabtii deyn. transaction-ka koowaad wuxuu la xidhiidhaa anagoo deyn micnaa alaabtii inta naloo keena ku nahno mar damaanu bixiyana lacagta waa deyn ahaan bay nagu noqonay, iyo mar anagoo receive gareynay oo cash ku bixina lacagtii. anagii markii halka hoose ku qoranay cash oo lacagtii aan bixinay. marka labada transaction wax la xiriiraan batches oo dharkii iyo sida loo receive gareeyo. marka cashirka ku xiga wuxuu noqonayaa marka transaction way fara badan yihiin isaana cashirku nagu dheeraan intana ku joojinayaa. cashirka ku xiga transaction kan uma kasii wadaya halkii. asxaabay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.